kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada maanta aad ku daawan doontaan galka wararka waxaa ka mid ah al-shabaab oo la gaarsiiyey guuldarrooyin culus lagana saaray deegaano badan madaxweyne xaaf oo gacanta ku dhigay 3 milyan dowladda federaalka Soomaaliya laga sugay jawaab degdeg ah iyo warar kale oo xiiso badan madaxweynaha Hirshabelle oo go'aan adag ka qaatay xiisada Yuusuf Dabageed baladweyne oo qarka u saaran dagaal iyo Yuusuf Dabageed oo meel uusan fiilin taageero ka helay madaxa howlgalka ciidamada midowga Afrika Soomaaliya oo kulan la qaatay madaxweyne Farmaajo qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal galka wararka haddii aad ku cusubtay waxaad saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqo ah iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya balse aan ku bilaabo dowladda Soomaaliya ciidamada militariga Soomaaliya oo howlgalo ka sameeyay gobolka Gedo ayaa la wareegay deegaano badan oo hoos yimaada degmada Baardheer ee gobolkaasi dhamme Cali Maxamed Xasan taliyaha ururka 49aad guutada 10aad qaybtiisa 43aad oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in al-shabaab laga saaray tuulooyinka Bakal Mataanaha iyo Burweyn oo ka tirsan gobolka Gedo taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanku ay soo dhaweeyeen marka ay tageen tuulooyinkaasi oo ku yaala wabiga labadiisa gedi wararka qaar ayaa sheegaya in iska hormaadyo kooban ay labada dhinac ku dhaxmareen halkaasi inkastoo aan la cadeyn karin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi xaaladda ayaa haatan kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemayaa duleedka magaalada Baardheer ee koonfurta Soomaaliya weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhanka dagaalamayaasha al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay ka baxayeen tuulooyin fara badan kadib markii cadaadis xoogan ay kala kulmeen ciidamada militariga Soomaaliya iyo diyaaradaha duuliyaha lahayn ee laga leeyahay dalka Mareykanka madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ka hadlay caqabadaha weli hortaagan maamulka Galmudug ee sababay inay horumar gaari waayaan madaxweyne Xaaf ayaa shaaciyay in dadka uu ku tilmaamay inay ka horjeedaan maamulkiisa aysan horumar la doonin Galmudug isla markaana ay doonayaan inuu dib u dhaco maamulkaasi wuxuu soo hadal qaaday in muddo sanad uusan tagin guri uu ka degan yahay magaalada Muqdisho walow uusan sheegin cidda u diiday inuu yimaado magaalada Muqdisho laakiin waxa halkaasi ka muuqanaysa inuu soo saameeyay khilaafka kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in muddo sanad uu diyaaro ku dulmarayo markuu uu doonayo inuu tago magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug magaalada Cadaado oo ah halkii lagu doortay culays badan ayaana haysta waad ogtihiin waana iska caabanaynaa dadka naga soo horjeeda wallahi inaysan doonin wanaageena markaan halkaan imaanayay mashaariic badan ayaa la dhagax dhigay aabi wax nagu soo laabtay ma aragteen ayuu yiri madaxweyne Xaaf oo la hadlayay shacabka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug sidoo kale madaxweyne Xaaf waxa uu sheegay inay dhismo ku wadaan ciidamada kala duwan ee maamulka Galmudug isla markaana loo diyaarinayo in ay difaacaan Galmudug madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa wuxuu khilaaf xoogan kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo maraya meeshii ugu darneyd madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo dhawaan xilka ka qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa xilka qaadista ka dhalatay xiisad xoogan gudoomiyaha xilka laga qaaday ayaa diiday inuu baneeyo xarunta uu ku shaqeeyo maamulka gobolka Hiiraan isla markaana uu wareejiyo xilka kadib markii ay u tageen waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer Hiiraan madaxweyne Waare ayaa haatan qaatay go'aan in si qasab xilka loo qaado gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed lana soo xiro iyadoo xusud ay mudan tahay in Dabageed uu wato ciidamo fara badan isla markaana gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu ku soo daadiyay ciidamo fara badan oo taageersan Yuusuf Dabageed weli waxaan ku guda jirnay wararka Beledweyne xiisad dagaal oo aad u xoogan ayaa ka taagan inta badan xaafadaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo u dhaxaysa ciidamo ka amar qaatay Yuusuf Dabageed iyo ciidamo kale oo ka amar qaatay madaxweyne Waare inta badan xiisada dagaal waxay ka taagan tahay kastamka canshuuraha ee xarunta gobolka Hiiraan iyo kontarool laga soo galo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi oo dhammaantood ay ku sugan yihiin ciidamo taabacsan Yuusuf Dabageed kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan gudoomiyihii xilka laga qaaday ayay ku heshiiyeen inuu iska difaaco weerarada kaga imaanaya ciidamada taabacsan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyagoon u ballan qaaday taageero xoogan taageerada uu ka helay odayaasha gudoomiye Yuusuf Dabageed ayaa la sheegay inay lama filaan ku noqotay
Yuusuf Dawageed kuna dhiirigelisay inuu iska difaaco ciidamada taabacsan madaxweyne Waare. Arrintaasi ayaa abuurtay walaac xooggan oo ka bilowday guud ahaan magaalada Beledweyne. wararka qaar ayaa sheegay in gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ay ku sugan yihiin ciidamada doonayo inay soo xiraan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dawageed oo si weyn ugu soo horjeestay xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna madax howlgalka AMISOM Francisco Madera ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo kala hadlay howlgallada ay wadaan ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya kadib markii dhowaan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waqti kordhin loo sameeyay. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii hore dabayaaqadeedii qaatay go'aan waqti kordhin looga sameeyay howlgalka AMISOM waxayna golaha ammaanka ay saxiixeen in 1000 askari laga dhimo tirada AMISOM ee ka howlgasha Soomaaliya si waafaqsan qorshaha kumeel gaarka ee Soomaaliya oo si tartiib loogu wareejinayo mas'uuliyadda amniga dalka ciidamada qaranka Soomaaliya. sidoo kale madaxweyne Farmaajo iyo Danjira Madera ayaa ka wada hadlay horumarada laga gaaray qaybaha amniga gaar ahaan waxay si aad diiradda u saareen deegaanadii dhawaan ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya AMISOM. deegaanadaasi waxay kala yihiin Sabiib iyo Bariir oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana magaalada caasimadda ee Muqdisho u jira wax ka yar 40 kiiloomitir. ugu dambeyntii wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madera ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada lagu beegsanayo kooxaha argagixisada ee ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM. Francisco Madera ayaa wuxuu kulan la qaadanayay madaxda kala duwan ee dawladda Soomaaliya iyadoona uu kulan la soo qaatay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. kulanka dhaxmaray gudoomiyaha golaha shacabka iyo Francisco Madera ayaa waxa intiisa badan looga hadlay sidii xoog loo saari lahaa doorashooyinka soo socda ee dhici doona 2020 iyo sidii amniga dalka loo sugi lahaa. daawada haddii aad ku cusubtay YouTube waxa saarta subscribe si aad u hesho warar xaqiiqo ah iyo xogtii ugu dambeysay ee Soomaaliya. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.